السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرونيمو صوبان صباحنيمو وناكسن هدي صباح كوتا هدي هبين كوتا في نيمو وناكسن ميل الباجوكتان ومرك لي برامج يعني بدر عاوية أكيد أون جرتين هنا وكلا بدر عاوية تي في وأنا قال اليوم بدر عاوية ميل الباجوكتان وعن الله هاي لا فيو اسكسون قد وناكسن وحقيقة هاي قلب أربعة هدي هبين كوتا هنا في نيمو وناكسن عن كل هاي هذي كوتا صباح نيمو وناكسن هيجي لو برنامج كنا سيشير جالس سبسكرايب لايك شير انت بينا كو قبطو هدو إلهي إدنو هل يلا وقدان سوقاتو كومنتيدي فيديوغي ugu dambeeyaan soo galiyay shalay كومنتيدي waxa ugu horeeyo Maxamuud Maxamed Cali ma sha Allah uu yiri aad baan ku salaamayaa saaxiib Cabdikaafi Diiriye hore u soco mas'uul aad baan kaga qaaday Cabdikaafi Diiriye cabdi wax laga qaban karo ma lahan barnaamijkan bidaar caawiya keep joining brother aad baan ku salaamayaa cabdi saaxiib sidoo kale okay shaqo wacan nabadoon waxaan kusoo qoray shaqo wacan aad ku salaamayaa saaxiib maxamed daawud maanta wax fiican aad sheegtay waa mahadsan tahay maxamed daawud weligay wax fiican waa sheegi jiray laakiin adiga maanta barnaamij ku anfacay ama wax ku anfacay aan ka sheegay oo kasii gudbaynaa sacad galo walaal hore u soco aad baan ku salaamayaa saaxiib ninalkan wuxuu soo qoray nabadoone bool bare miyaa marsatay waa tima yare mawlid oo macalimo tima yare waxaa tiri nabadoone bool bare miyaa marsatay madaxa maxaa daryeeli jirin miyaa saaxiib madaxa waa daryeeli jiray laakiin burushkana asaas burushkan aad ujeedid waa saas wuxuu kaa kicinayaa wixii kugu jiray agool ahaa saliid qofka isticmaalniyo heer looshinkana uu dareemi karaa inay agool leedahay ninka isticmaalo waxaan u maleynaa inaad isticmaalin haddaa isticmaasho waa ogaan lahayd inay agool leedahay in kale burush kale ma ahan burushii kaba ma ahan burush madaxa loogu talagalo waaye asaa ka kicinaya agoolka halkaasaan kaga baxayaa waxaa tiri cusmaan shaashi wuxuu yiri bidaar caawi walaal qof saliid u marsan tahay kulanka halkaasaan kaga haray kaas saaxiib aad baan ku salaamayaa cusmaan shaashi mid halkan waxaan kusoo qoray cabdullaahi shuuriye midna jar buu ku dhahaa midna hajarin yaa raacnaa yaab cabdullaahi shuuriye saaxiib aday kuu taallaa taa rabtid qaado go-aanka adaa iskale laakiin aniga waxaan ku dhihi lahaa tale ahaanteyda liibaan bidaar caawi ahaan timahaaga jar sababta aad timaha u jaraysa waxay tahay baashan waa sprite haddii timahaaga marka hore aad soo abuurato turki aad tagta ani ma aqaan laakiin baashan waa ujeedaa waa sidii hadduu ilaahay kuu royaa waa sidii barafuun oo kale adii hataa fakar hadday timahaaga badan yihiin barafuun aad ku shubto kartoonka ani kuma soo qorin waa lafta baasha inay gaarta kartoonka ani kuma soo qorin lafta inay gaarta waa kuma soo qorin ani saaxiib macaani aday ku taala haddaad jiraysid iyo haddii kaleba caafimaadkaaga wadaago qof walba caafimaadkiisa saa oga laakiin halkan waxaan soo fadhiisanaa inaan kala faa'iidaysano intaan new lotion isticmaalaysay waxaan ku aragtay maasha allah ninkii la odhan jiray aamine axmed maasha allah abaay aad baan kuu salaamayaa hore u soco shariif cumar wuxuu yiri soco runtii dhiirigelin baa kaa helaa waa dhiirigelisaa aad baan kuu salaamayaa sharaf cumar garan boy whatsappka iisoo qor whatsappkayga waa ujeeda haddaad daawatid video whatsappka waa ku arkaysaa aad baan kuu salaamayaa cabdiqaadir maxamuud maxamed wuxuu yiri nin yahow tinta way kuu soo baxday wallaahi aad baan kuu salaamayaa cabdiqaadir maxamuud maxamed cabdirasaaq xuseen wuxuu yiri walaal maxaan sameeyaa mar walba oo mariyo saliidda cadcad baa ka soo baxo horaan kugu sheegay cabdirasaaq haddaad mariso saliidda cadcad oo ka soo baxo burushkan kuu sheegaya qaado burushkan raadso haddii afrika soomaaliya joogtana burush caadi waa helaysaa ma weynaysa burushada kalaa lagu baalasho kale waa isticmaali kartaa aad baan ku salaamayaa cabdalle muwa saaxiib waxaan kaaga mahadcelinayaa kadib barnaamijkan dhiirigelinta waxaan ku weydiinayaa la hor bilaabaa isticmaalka burushka ama darmaroolka burushka mar walba ma isticmaalaysa hal mar aad isticmaali kartaa burushka mar walba ha isticmaalin haddaa rabtid waxaad isticmaali kartaa marka habeenkii oo kale ama subaxdii oo kale haddaad jaanis hesho burushka wuxuu kaa kicinayaa agoolka waxaa hormarsan kartaa ani aan ku leeyahay burushka hormarso kabacdi darmaroolka isticmaal kabacdi markaa darmaroolka dhamayso saliidda markaa dhamaysana shallada u dambaysiiye burushka hor isticmaal burushka hor isticmaal markaa burushka dhameyso waxaa ku xijisayaan ku yiri burushka hor isticmaal
burush waa ku xijisa dalmaroolka dibada saliid markaa ku xijiso masaajay markaa masaajeyso kadib shallada caadiga mari aad baan ii salaamayaa barnaamijka maanta halkaas uga baxaya commentiga halkaa naga daawanaysa waa Bidaar Caawiye TV oo anigu waa Liibaan Bidaar Caawiye barnaamijka maanta wuu biljirsaday 22kii Juun aan bilaabo barnaamijkan Bidaar Caawiye TV uu 22 maanta 22kii tahay Yuuli waa bil uu biljirsaday insha Allah sidar muuqdo sad ka dhan Soomaaliya wuxuu ma sidar muuqsan ka sad ka dhan su'aal ka dhan sidar muuqdo hal ahada su'aal ka dhan ujeedadu waxay tahay timahayga aniga haddaan faa'iido ku qabin barnaamijkan oo sii wada lahayn haddii aan faa'iido ku qabin inta isticmaalaya New Hair Lotion barnaamijkan Bidaar Caawiye TV waa soo gabagabeyn lahaa waxaan jeclahay in aqyaarta ku xiran meeshan oo sharafta leh oo mar walba daawato oo nala wadaagto commentiyadooda iyo fikradaha hal xishoon commentiga taa ka xishoonaysana WhatsApp-ka way ugu soo sheegi kartaa waxa u baahan tahay waan ka caawinayaa barnaamijka magaciisa wuxuu yahay caawan ku caawiyo hayga ilo subscribe-ka oo aniga waa Liibaan Bidaar Caawiye kuna nool Sweden gaar ahaan Buurlenga aan deganahay way la soo xiriiri kartaa sida ugu fudud ay la soo xiriiri kartaa waan ka caawinayaa wixii aan kugu dhaamo oo ku saabsan New Hair Lotion sida loo isticmaalo iyo sida dib kugu geysan waxaan rabaa inaan barnaamij ku soo daro cod inaa u qaadaan barnaamij kadis aan ku soo darayaa kadiskaas wuxuu noqon doonaa su'aalo magaaladan deganahay barnaamij kadisa su'aalahaas waxay noqon karaan su'aalo diini ah ama su'aalo maadi ah ama juqraafi ahaan oo ku saabsan wadankeena arday waxaa jira dhalinyaro badan qurbaha ku dhalatay waa taqaanaa waxaan u naqaanaga say wallah qurbaha ku dhalatay aqoon wadankooda waxyaalo caan ku ahaa waxaasoo dhan insha Allah marka u soo coday barnaamijkaas haddaan ku soo daraayo barnaamijkaas oo barnaamijkiisa isbuuci mar ka bixi doona nin odaya wuxuu ii soo qoray nabadoone barnaamijkan waa naga badbadisay barnaamijkan naga joojiyay waxaan ku yiri nabadoone aadan kugu baahanaa adiga haddii aad barnaamij kale hayso ama waxaan ugu soo kordhinayso kaama diideyno WhatsApp-kaaga noo soo qor anaan kula soo xiriirino si live aan kugu gelinaynaa barnaamijka haddaa hayso wax mawduuc ah ani qabiil horaan kugu sheegay ani qabiil hayga sugin inaan wax ka sheego qabiil inaan wax ka sheego hayga sugin qof bini aadan shakhsi inaan u gaf hayga sugin waxaan ka hadlayaa waxay tahay see iskaga celinaa bidaarta barbaarta gaashaaman sidee iskaga celinaa bidaarta ama see bidaartan aan ugu dagaalnaa oo dagaal ula galnaa bidaarta adoo gurigaaga jooga adoo meel kale aadin daawo kale isticmaalin wax kale isticmaalin only bas saliida isticmaalaysa New Hair Lotion sidee ula dagaalnaa bidaarta barnaamij magaciisa ah nabadoon haday wuxuu ii soo qoray marka waxa waaye Soomaalida waa taqaanaa haddii aad meel soo fadhiisato aad barnaamij qabsato ama waxa samaysato ma weynaysid qofku dhaliilo ma weynaysid qofku dhaho waa waalan yahay hore waan ugu sheegay nabadoonka ii soo qoray waa is og tahay commentiga barnaamijkan kuma qancin haddii aad hayso wax fikrad ah oo ummadda waxtar u ah hadduu hadalkayga fiirso haddaa hayso barnaamij ummadda wax u taraayo oo ahayn reer hebel iyo fudulaan iyo reer qajaaf iyo reer qasaxya ahayn oo kusoo dhaweynaynaa barnaamijkan sidiisaba mar walba ka sugin wax kale wuxuu ku saabsan yahay sidee iskaga celin kartaa timaha ku daadanayo iyo bidaarta timaha ku daadanayo iyo bidaarta halkaa naga daawanaysaan waa Bidaar Caawiye TV oo aniga waa Liibaan Bidaar Caawiye ku xirno barnaamijka aad baa u mahadsantihiin asxaabta ila soo wadaagtay commentiga hal iyo labo kaan iloobana ka raali ahaaba insha Allah mar walba waxa caan ku ahay waa ogtihiin markaan hoosheyda inaan galo barnaamijkaas kadiska naha ama may waa soo codayn kartaan barnaamijka kadiska isbuuci mar walba maalin ka baxaayo kadis waaye waa su'aalo qofka la weydiinayo 3 su'aal hadduu qof ka jawaabo wuxuu helayaa abaalmarin 3 su'aal aan weydiinayo isbuuci hal mar u baxaya 3 su'aal qofka hadduu ka jawaabo wuxuu helayaa abaalmarin 3 su'aalood waaye 1 2 3 hadduu qof ka jawaabo 2 su'aalood abaalmarin ma helayo 3 su'aalood haddaa ka jawaabto barnaamijka kadiska Bidaar Caawiye TV waxaa helaysaa abaalmarin aad ku faraxdo insha Allah halkaan naga daawanaysaan barka YouTube aan kuleeyahay Bidaar Caawiye TV hadda waxaan bilaabay burushkii sida kuwa muuqato burushkii aan wadaa ku xirno barnaamijka meel walba joogto burushkaan bilaabo burushkaan sideedaba 24 saac mar isticmaalaa uma baahni inaan mar walba barsado waxay ugu qasbayaan malaha inaan mar walba marsado burushka marka waa samayn kartaa haddii madaxaaga awool badan uu leeyahay waa isticmaali kartaa dhowr mar ani laakiin
hal maraa isticmaalaa insha allah. halkaa naga daawanaysaa bidaar caawiye tv oo aniga waa liibaan bidaar caawiye dhammaantiin. intaa markaa burushka isticmaasho waxaa ku haray darmaroolka oo ujeedaa ramadoonka soo weydiiyey uma baahnid inaad wax kala sii barbaarto. darmaroolki dhag ku buubsii darmaroolka. halkaa naga daawanaysaa bidaar caawiye tv. ha iga ilowin subscribe, share, like, commenti, la wadaag saaxiibadaada, asxaabtaada. waxaan soo wadaa maanta aan soo gelinayaa cashirkan aad ku arki doontaan before iyo after bil ka bacdi liibaan bidaar caawiye maxaa iska bedelay. sadar muuqdo su-aal ka dhan maasha allah. adna waxaan rajeynayaa sidaas oo kale inaa u dadaashid saan u dadaalay aniga aan u dadaalay adna inaa ila dadaashid. aad baan ii jeclahay barnaamijka asxaabta ku xiran, asxaabta ii dhiirigeliso, asxaabta commentiga ila wadaagto, asxaabta ila wadaagto dhibkay ku arkeen saliidda ama dheeftay ku arkeen. barnaamijku wuu sii socon doonaa. halkaa naga daawanaysa waa bidaar caawiye tv oo aniga waa liibaan bidaar caawiye. haddaa ku cusubtahay barnaamijka sheer gareey, leeg, commentiga u diro walaalkaaga bidaarta leh ama saaxiibkaaga bidaarta leh suu uga faa'iido barnaamijkan u dir. berihii kore aan bilaabayay madaxa aad u cadaayaas leedahay hadda laakiin timihii waa imaadeen nabadoona. timihii waa imaadeen maasha allah. waxaa loo dadaalin lama helo. laakiin timaha ogow hal maalin iyo isbuuc iyo bil iyo waxba kuma soo noqdaan. timaha yaroo xaala ii soo baxay laakiin kama daalayo. hal sana ha igu qaadato hadday rabto kama daalayo. howsheeda waa wadaaya kama daalayo. hal sana ha igu qaadato. darmarolka waa dhameeyey nabadoone. micnaha waa soo kokoobayaa maadaama barnaamijka wax badan kaga hadla. barnaamijkaas keliskaas ha moogaan. haddaad degan tahay burleenga iyo nawaaxiga barnaamijka keliska isbuucii marbuu ka bixi doonaa. waana usoo codeynaysaan barnaamijkaas. akhyaarta ku xiran meeshaan usoo codeynaya barnaamijkaas inaan kusoo dirno haa ama maya. haddaa kusoo qorta haa micnaheeda waxay tahay barnaamijkaas waa loo baahan yahay keliska ah oo la weydiinayo asxaabta. barnaamijka keliska waa loo baahan yahay la weydiinayo asxaabta ama dadka magaalada ila degan. waa kadis 3 su-aalood waaye. 3daas su-aalood qofkii ka jawaabo wuxuu helayaa abaalmarin. 3 su-aalood waaye. 1 2 3 su-aalood qofkii ka jawaabo wuxuu helayaa abaalmarin oo ku farxo. halkaa naga daawanaysa waa bidaar caawiye tv waa aniga waa liibaan bidaar caawiye maskiinkii. meel walbaa joogtaan ku xirno barnaamijka inaad sii sheergarayso. ha ka caajisin inaad daawato. ha ka caajisin. walaalaha kamid ah soo wacay wuxuu u weydiiyey lambarkayga. meeshuu lambarkayga ugu weydiinayna videoga xala waayo ugu dambeeyey. lambarkaaga ii sheeg uu yiri whatsappka. marka hadduu taas waxay la micno tahay hadduu videoga daawan lahaa bilowga hore uu ku jiraa barbaarta gaashaaman bidaar caawiye tv lambarkayga whatsappka wax oo dhan way ku jiraan. laakiin nasiib xuno waxaa mudaa dadkeena inay barnaamijka daawan ayagoo daawan intay ku soo wacaan ama wax kuusoo qoraan ku weydiinayo. marka hore walaal barnaamijka daawo. markaa barnaamijka daawato hana iga iloobin suul leega dhag leega abti macaane. commentiga hala xishoon abti macaane. commentiga maxaa kuu diiday ummada kalena wayna siinaysaaye. commentiga maxaa ula xishoonay adi. subscribe, commenti, share, like intaba hala xishoon. sawirada maantan kula wadaagaya insha allah. sadar muuqdo su-aal ka dhan waa aniga waa liibaan bidaar caawiye. abti macana ujeedaa burush, darmarool, saliid. maxaa ka maqan marka burush waxaan ku dhahay waxaa ka bilaaba burushka waxaan ku xujiyey darmaroolka waxaan ku xujiyey saliidda waa masaajeeyey. maxaa u dambeeya marka shallada. haddii marka darmarool aa haysan iyo burush shallaa ka bilaabee. shalla 7 daqiiqo ilaa 5 daqiiqo shallaa ka bilaabay. markaa shallaysato oo shallada aad dhamaysato kabacdi ayaa waxaa isticmaalaya saliidda. markaa saliidda isticmaasho masaajey. markaa masaajeysa kadib shallada u dambeysay waa haddaad haysan darmarool iyo burush. haddii aa afrika joogto ama soomaaliya joogto burush waa heli kartaa. burushka kabaha lagu baalashaa ku habaysan kartaa waa hadduu madaxaaga agool leeyahay. hadduu agool leeyahay waaba ogahay inuu agool yeelanayo waayo saliidda ayaa agool leh. saliidda ayaa agool ka keenta madaxa. aad baan nii salaamaya. aad baan nii jeclahay. ku xirno barnaamijka usoo codeeya fadlan waa fadlan barnaamijka keliska. 3 su-aalood haddaa ka jawaabtid waxaa helaysaa abaalmarin. ها أما مايا إذا كان يقصوا يا جوابت أصحابتك وحيرا جنال كان وأنا قال اليوم بدر عاوي وإن بهايو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.